haddaada gabadha weydiinin cuntada aad jeceshahay sidaan horay u sheegnay wax badan ku aynay bariis baasto dalac bilaash haye dhowr jeer aan ku celinay hadhowta maxaa dhacaya haweenku inay dhahaan sheekhow nimanka Soomaaliyeed jacayl waxba kama yaqaanaan sax waa nimay ayadu toogatay waa nimad adigu dishay gabdhaha waxaan ku dhahaa ragga waa la nafaqeeyaa fiiriyo su'aal haddaan gabdhaha way iga fog yihiin aan hal su'aal weydiin lahaa waan jeclaan lahaa oo aan codkooda maqli lahaa oo gabadh walba aan ku dhaho caruurta guriga joogta yaa caruur ilmahe ugu yar yaa caruurta guriga ku joogta ilmahe ugu yar haween badan baan weydiiyey islaam walba waxay leedahay wiil baa iigu yar gabadh baa iigu yar aamus ninkaa kugu yar ilmaha waxa ugu yar waa ninka waliba waa idiin sheegayaa dhegaysta qofka ugu dambeeye la seexiye ee sariirta la geliye ee go'a la huwiye ee caanaha la siiyo ma ilmaha mise waa ninka runta ii sheega soo ninka maaha fiiriya haddaba dadka guriga ku nool ilmaha ugu yar ilmaha reerka ugu yar ma la dayacaa mise waa la dhaqaaleeyaa dhaqaalaysta dumarka raggiina dhaqaalaysta oo macsarada iyo cambuulada ku gura iyo kalluunka waxaa kale oon jeclahay inay gabdhuhu fahmaan iyo raggaba in masaajka la barto masaajka ma taqaanaan ninka markuu shaqada ka soo noqdo odayga intaad sariirta aad go' khaasa saarto seexi asaga dhanba kadibna min madax ilaa luga masaajka u samee oo haddaadan ninkaaga u masaajaynin ma islaan gaalaaba u soo masaajayn marka aduu kugu soo daalay ninkuna waa inuu masaajka barto xaaskiisu masaajay isu masaajay marka cambuuladu waa muhiim oo digirtu waa muhiim oo macsarada iyo olyaliibadu waa muhiim oo kalluunku waa muhiim oo qudaartu waa muhiim marka ragga la dhaqaalaysto haddii kale hadhowta waxaa la dhihi ragga Soomaaliyeed jacayl ma yaqaanaan nin aad dishay jacayl muxuu ka garan alihi allah cuntada nooceed ugu jeceshahay haddaba ninkaagu si sheeg gabadhuna ha weydiiyo